kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo Banjir Media Production. habeenkii xalay ayay ahayd markii qaramada midoobay ama golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay soo saareen isla markaasina 14 wadan oo golaha ammaanka ka tirsan ay u codeeyeen in hubka laga qaado dawladda Soomaaliya hal dalna uu ka aamusay. taasi oo saarayd muddo haatan laga joogo 30 sannadood laga soo bilaabo 1992 haddaba dawladda Somaliland ayaa war-saxaafadeed ay ka soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland ayaa lagu daadafeeyay cunaqabataynta hubkaasi ee laga qaaday Soomaaliya. xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland waxay walaac xooggan ka muujinaysaa ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka isla markaasina si weyn ay uga soo horjeedaa cunaqabataynta dhinaca hubka ah ee laga qaaday dawladda Soomaaliya, taasi oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku soo saaray qaraarka tirsigiisu ahaa 733 Somaliland waxay tiri waxaanu aaminsanahay in qaadista cunaqabataynta hubku ay halis ku tahay mandaqada geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka. waxay intaasi ku dartay Somaliland dagaaladii arxan darrada ahaa ee dawladdii wixii la oran jiray Soomaaliya ku soo qaaday dadka reer Somaliland isla markaasina ku laysay in ka badan 200 oo kun oo muwaadiniin reer Somaliland ayaa si weyn inoo xasuusinaya khatarta uu hubka oo si fudud loo helo. Somaliland waxay aragnimo u leedahay war-saxaafadeedku yidhi cawaaqib xumida ka dhalan karta hubka aan la xakamayn. waxaananu ka digtoonahay ayuu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xukuumadda Somaliland suurtagalnimada in hubkaasi gacanta uu galo kooxaha xagjirka ah iyo kooxaha maleeshiyaadka. soo ifbaxa kooxaha maleeshiyaadka sida kuwa laascaanood ee la safan kooxaha xagjirka waxa ay muujinaysaa ayuu yidhi war-saxaafadeedku khatar cad oo ka jirta gobolka. qaadista cunaqabataynta hubkuna waxay sii hurinaysaa ayuu yidhi war-saxaafadeedku ama sii hurin kartaa kooxahan, waxaanay khatar gelinaysaa ammaanka iyo in ay uga sii darto dhibaatooyinka bani'aadanimo ee hadda jira. Soomaaliya si cad umay samaysan ayuu war-saxaafadeedka ka soo baxay Somaliland nidaam habboon oo lagula socdo hubka isla markaasina lagu kormeero amaba siyaasadaha maamulka ee dhinaca hubka. tani waxa ay kor u qaadaysaa ayuu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay Somaliland warwarka weyn ee ku saabsan in hubka loo leexiyo kooxaha argagixisada iyo kooxaha xagjirka, taasi oo uga sii daraysa xasiloonida gobolka. loolanka dhinaca hubka ee kooxaha xagjirka ee Soomaaliya ayaa ah mid suurtagala marka laga qaado cunaqabataynta hubkaasi, taasi oo shaki la'aan mijaxaabin karta xasiloonida iyo deganaanshaha gobolka, sida oo kalena abuuraysa jawi hubkaasi tartan loogu galo. xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland waxa ay u soo jeedinaysaa ayuu war-saxaafadeedku golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay si joogto amaba si qoto dheer ay uga fiirsadaan dhibaatada culus ee ka dhalan karta qaadista hubkaasi cunaqabataynta laga qaaday, isla markaasina ay sameeyaan hanaan lagu dabagalo laguna ilaaliyo in hubkaasi gacanta uu galo kooxo aan qaadi karin mas-uuliyadda hubkaasi. xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland waxaa ka go'aanaya war-saxaafadeedka lagu soo gabagabeeyey inay la shaqayso dalalka gobolka iyo bulshada caalamka dhinaca ammaanka, isla markaasina qayb weyn ay ka qaadato arrimaha khatarta amni darro ku ah xasiloonida iyo deganaanshaha gobolka.